الباب وفكي وسيله ويرمى انت عالميته وقاسك الالقالا اكتوبر اذانها عليو قبيل يكغريك يو دليو تحت عاسيتي من يرى انفاع الباب وفكي وسيله ويرمى انت عالميته وقاسك الالقالا اكتوبر اذانها ومن يدخل دنيا عبيد ومن وبحسورة غير راعية من نمو وآلي جدي الالقالا اكتوبر اذانها ومن يدخل دنيا عبيد ومن وبحسورة غير راعية من نمو وآلي جدي daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeennii milicsiga maalmihii ku soo maray oo aan ku soo qaadan doono taariikhdii dowladdii kacaanka ahayd ee maxamed siyaad barre la soco xuska maalinta kacaanka 21kii bishii Oktoobar ee 1969kii hordhaca barnaamijka taariikhda kacaanka ee siyaad barre oo xuskeegu uu ku beegan yahay maalmaha soo socda 15kii bishii Oktoobar 1969kii ayaa la dilay madaxweynihii Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmaake isagoo socdaal ku maraya magaalada laascaanood allaha u naxariistay waxa madaxweynahaasi la aasay 20kii bishii Oktoobar 1969kii isla habeennimadii xigtay inta uu waagu u bariin ayay ciidamadii la wareegeen taladii dalka Soomaaliya 1974kii oo ahaa sanadkii afraad ee taliska ciidanka Soomaaliya waxa la weydiiyay maxamed siyaad barre waxyaabihii uu wadanka u qabtay waxa uu ku jawaabay sida tan hadalkuma koobi karaan isleeyahay waxyaalaha waaweyn oo gacanka u qabtay balse waxaan u mudan mid ka taabto isleeyahay waxa ugu weyn waxay noqon karaan in dadka Soomaalida ah oo awalto hurday in hurdada ka toosay dadka Soomaalida oo awalto ogeyn iyaga dad ahaan awoodooda iyo dalkooda khayraadka ku jira iyo iyaga nafta waxa ay isu yihiin inay maanta garteen haddaan midnadu ka soo tilmaamana matalan waxaan nuuro u garan karayaa Soomaalidu in ay xagga saxaafada ama xagga tacliinta aqoonta inay ku xirnaayeen ajnabi oo dawlado kaleeto afkood iyo tacliintooda ku xirnaayeen laakiin markii af Soomaaliga la hirgeliyey degmadiisa in ay u noqdeen dad ahaantood Soomaali cusub ayaa dhalatay markaasi dadkuna waxay u hanweynaayeen waxyaabaha ay dadka iyo dalka u qaban karaan guulahaasi waxay dhaliyeen suugaan iyo heeso ay dadka qaarkood ku qaadi jireen guulwada wasiyaad waxaana ka mid ahaa midda tan
عدوي للترك قبشدر عم بكر لما يسور منتر انقذي إلا عود درستين لا يسيح الرمو وقفاقتين هذه قالها أكتوبر أدارا قديد شبكة وقبشدر عدوي للترك قبشدر عم بكر لما يسور منتر انقذي إلا عود درستين لا يسيح الرمو وقفاقتين هذه قالها أكتوبر أدارا أنيو طبيب ميلك يحكي يحيو دليو دعك آسيدي وانتي لا أنفاع الباب وفركي وشيله ويرمى انتي عالمي يدوم وقاسنكي دالي قالا أكتوبر أدالها أنيو طبيب ميلك يحكي يحيو دليو دعك آسيدي وانتي لا أنفاع الباب وفركي وشيله ويرمى انتي عالمي يدوم وقاسنكي دالي قالا أكتوبر أدالها ومن يدق يدوني أبين ومن يوبح سورة دوغين راعي بالنمو وآلي جدي دالي قالا أكتوبر أدالها ومن يدق يدوني أبين ومن يوبح سورة دوغين راعي بالنمو وآلي جدي دالي قالا أكتوبر أدالها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داودياشيدا qiimaha iyo qadarinta mudan meel kasta oo naga dheehanaysaan waan xiliyadii aad nooga barateen inaan idin soo gudbino war wixii dalka iyo dadweynaha naga soo gaaray warka habeenkii caawa waxa idin socodsiin doona hadduu alla raali ka noqdo anigoo Kawsar Jaamac Barkhadla balse aynu ku hormarno qaar kamid ah qodobada warkeena ugu door karoon tafatiraha guud ee Raya TV Ali Ismaaciil Aare Cali Waaheen ayaa maanta mar uu shir jiraayad qabtay ayaa waxa uu kaga hadlay caburinta lagu hayo saxaafadda gobolka Awdal sidoo kalena waxa uu ka hadlay xadhigii loo geystay editorka Raya TV Injineer Cabdiraxmaan Axmed Doolar gabadh kamid ah gabdhaha ku nool magaalada Boorama ayaa waxay cambaaraysay maalinta SNM ganacsatada qaadlayaasha magaalada Boorama ayaa waxay mar kale cabasho ka muujiyeen cashuuro ay ku soo rogtay dawladda hoose magaalada Boorama akaadamiyada adko ayaa maanta waxa ay soo bandhigtay barnaamij ay ugu magac dartay shaaha cabbuugana akhri daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qaar kamid ah qodobadii warkeena ugu door karoona imikii aadna u diyaar garooba warkii oo faahfaahsan
tafatiraha guud ee telefishinka madaxa bannaan ee Raya TV Cali Ismaaciil Aare Cali Waaheen oo maanta shir jiraayad qabtay ayaa waxa uu kaga hadlay cagajugleynta lagu hayo saxaafadda gobolka sidoo kalena waxa uu ka hadlay xadhigii loo geystay editorka telefishinka madaxa bannaan ee Raya TV Cabdiraxmaan Axmed Doolar faalada warkaasi waxa inoo eegaysa wariyahayga Shukriya Cabdi Cabdilaahi tafatiraha guud ee telefishinka madaxa bannaan ee Raya TV Cali Ismaaciil Aare Cali Waaheen ayaa maanta shir jiraayad oo qabtay waxa uu kaga hadlayay caburinta saxaafadda gobolka Awdal lagu hayo sidoo kale waxa uu ka hadlay injineer Cabdiraxmaan Doolar oo editorka guud ee telefishinka madaxa bannaan ee Raya TV oo maanta ay xarig kula kaceen ciidamada booliska ee magaalada Boorama waa sida uu hadalka u dhigay tafatiraha guud Cali Ismaaciil Aare Cali Waaheen oo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri ميدياها وشينا أبابا أنك باهنينا إن أبارو مركي أي ماتا ساعدو هيد اللبية تمكي دهور نمو إذا ماذا بولشكو أي صورين حرونتا تيفي غريو إياغا أو أن سفر شرعي أسو مرينا أي باريتان كسميين حرونتا isla markaan halka ay ka qafaasheen injineerkii farsamayaqaankii idaacadda Cabdiraxmaan Doolar xabsigan u taxaabeen inkasta oo saacad kadib ay soo daayeen wariyahaasi sababta keentay xariga ilaa hadda aanan garanay balse wararka aan helayno hadda ay tibaaxayaan ay sheegayaan in ciidamada boolisku ay gacanta ku wadeenba waran ay damacsanaayeen inay ku qabtaan ama ku soo xidhaan agaasimaha TV-ga Rayo idaacadda maxalliga ee Rayo Axmed Adiriye Ceeltire taasina waxa weeyaan caburus waxay ka mid tahay tallaabooyinka cadaadiska iyo caburinta lagu hayo ee ay xisbul xaakimku uu ku hayo xukuumadda Somaliland saxaafadda iyo xorriyatul qowl sidaas darteed waxaan beesha caalamka la socodsiinaynaa wax dimuqraadiyad la yiraahdo oo ka jira haba yaraatee Somaliland maanta inaanay jirin maadaama aan loo ogolayn saxaafaddu inay daliil maamulka ka sheegto wax daliil la yiraahdo haba yaraatee inay maamulka ka sheegto waxana ay arrintani ka bilaabantay laba toddobaad hortood kadib markii cashuur lagu soo rogay ganacsatada jaadka ciidamada boolisku ay rasaas ka dhex bilaabeen magaalada iyo rabshado mudaharaadyo rabshado watay wararkii laga baahiyay inay isku bedeleen maanta yaa maxaad wax looga sheegaysaan ama dhaliilaha iyaga u sheegaysaan taasina ay keentay in waarano dee la adeegsado amaba xabsi iyo xadhig lagula kaco saxaafaddii run ahaantii waxaasi wax shaqaynaya maaha saxaafaddu waa xor mar kastana waxaan sheegaynaa in ay sheegayso dhaliilaha balse maamulka ama taliya qayb booliis ha ahaado ama ha ahaado maayar duq magaalo waxaa looga baahan yahay marka dhaliil la sheego dee ma aha ciidan boolis inaad adeegsataan bal dhaliisha saxaafaddu laydinku sheegayo sidaad u toosin lahaydeen ayaa idinka waajibaadkiina eese maaha xadhig iyo cadaadis iyo cagajuglayn in lagula kaco una dulqaadan mayno yeelina mayno xadhigga iyo cadaadiska iyo dulqaadka haddii la joojin waayana dee kulley tallaabooyin kale ayaan annaguna ku dhaqaaqaynaa oo ay dimuqraadiyaddii haddii la laabo annaguna waan laabaynaayo hawlo kale ayaan degalaynaa waa Shukriya Cabdi Cabdilaahi Raya TV magaalada Boorama
gabadh ka mid ah gabdhaha ku nool magaaladani Boorama ayaa waxay cambaaraysay maalinta SNM-ta waa mar kale iyo wariyahayga Shukriye Cabdilaahi Hoodan Nuur Cali waa gabadh ku nool magaalada Boorama waxay si qoto dheer uga hadashay maalinta shucaadada SNM-ta taasoo ku tilmaamtay inay mid qalad tahay maadaama heshiiska dalku uu ku dhisan yahay nabad iyo arrimo la isla meel dhigay inay qolo quri ay ku tilmaamato inay dalka kaligood u soo halgameen waa sida ay hadalka u dhigtay waatan iyada oo ka waramaysa arrimahaasi waa Hoodan Nuur Cali magaalada magaalada Boorama xalay waxa ka daawanayay telefishinada in la leeyahay mujaahidiinta horta dalkan ma jiro meeshan cid dagaalkii badarkash Soomaali baa isdishay reer walba rag baa ka dhintay reer la riya qabay mar walbana waxa dheel lagu dhaga barjiyay xukuumadda maanta jirta mujaahid hebel iyo mujaahid hebel marka culimada af Soomaaliga ku hadasha ama inta ay maqlaysa waxa ka codsanayaa inay ka hadlaan arrintaan oo la cawaaqib xumo fara badan marka la yiraahdo lagu daro manhajkii iskuulada lagu dhiganayay SNM iyo wixii ay soo martay ina ka reer awdalna uu aaminsan yahay ina ka beesha dhaxan inuu xaaraan ka yahay dhiigiisu ina ka beesha dhaxan uu aaminsan yahay nin reer awdal haduu dilo ama uu nin Soomaaliland fadligeeda uu ku dilo inuu janno ku galayo adduunyada uu magac iyo maamuus ku helay runtii waxay dhalaysaa cawaaqib xumo daba dheeraan doonta ilaa 100 sano ee soo socda because laba nin oo meel ku wada nool ninna aaminsan yahay inuu kan dhiigiisu xalaal u yahay oo lagu shubayo habeen iyo maalin dalka waa loo soo halgamay dhiig baa la daadiyay dhiig baa la soo qubay maalin walba dhagaha loogu shubayo iyo dadka ummadan masabkeedii baa habeen iyo maalin baa dhiigeeda lagu faanaya oo lagu darajo tirsanaya marka hadii dhiiga dadka darajo lagu raadinayo oo masab iyo magac lagu doonayo u malayn maayo Soomaali Shukriye Cabdilaahi Raya TV magaalada Boorama ganacsatada qaadlayaasha magaalada Boorama ayaa waxay mar kale cabasho ka muujiyeen cashuuraha ay ku soo kordhisay dawladda hoose magaalada Boorama faalada warkaasina waxay noo hayay wariyahayga Liibaan Serbiyo iyadoo dawladda hoose iyo maayirka magaalada Boorama Maxamed Xuseen Maydhan ay cashuuro dheeri ah ku soo rogeen ganacsatada qaadka ayaa muddooyinkii u dambeeyay arintani waxay noqotay mid saameyn weyn ku leh amniga magaalada Boorama taasi oo keentay in ay magaalada ka dhacaan mudaharaadyo rabshado wata maayirka magaalada Boorama oo ay dul hoganayso eedaynta kaga imanaysa shacabka magaalada Boorama iyo siyaasiyiinta gobolka ayaa dhagaha ka dabooshay tabashada shacabka haddaba mar aan maanta mikrofoonka Raya TV la dhex marnay ganacsatada qaadka waxa ay si kulul u dhaliileen qaabka uu maayir Maydhan ee wax u wado waxaan xagan ka dirayaa fariin dawladda hoose waxaan u sheegayaa dadkan masaakiinta ay 5,000 ku xijeenayaan ka daayaan inamadii aan doornay baa dib anaga lagu soo jeediyo qori dawladda hoose waxaan leenahay waxa ka dhiman awraha wadaan islaan la marduuf haysatay ka doonayaan shaqo ayay ka keenaysaa waxa weeyaan dawladda hoose ka dayso filinka ay ka wado Allah waxa weeyaan ragii la diyaariyay imika way qaadayaan shantii now waxaan media u sheegaynaa dawladda hoose ay ka dayso inamadii aan doornay qoriga u dhiibnay lagu soo jeediyay waxa laga daayaa miiska yarayna kana soo dhigtaan iyagoo caruuro u shaqeynaya anaguna qaab kuwa leed baan ku shaqeynaa halkaashan kunoo shirin saddex madafriga qaaniyo wax soo qiimeeyaan iyaga dadka mas'uuliin shantii boqol baa shukun bedelay hal saacaalka lagu kala faa'iideynaya ka sheey marka dawladda ma jirtay waa la isbaabaya sideed uma dagaal maayir Maydhan waxaad ka oranaysaa maayirka waxaan leenahay kuwii hore ha jiraan ma lahayn kan yaa la waarki ma nu leenahay wax jirana ma taariikhna kama tagin waxaan nagu 500 baa nagu dirtay laba marduufan oo ka saar qaadan oo la yiraahdo sugayo 500 kama aqoon 500 baa nagu dirtay oo ku soo qaadan oo ninkii u celinayno oo kala fiicna ka soo cilna caruuriya biyo barisna ka bayn daadu maayir baa naga noo soo shaqada ku dawladda naga noo soo shaqada kaale adigu iibi dhaab shaqbaasha 500 ka heshay waxaan ahay laba marduuflay suuqa fadhido agoon leeyahay labadii marduuf ee soo qaatay yay dawladda hoose tiri 5,000 oo lacaga ka bixi 5,000 oo lacaga ma ka faa'iidaa marduufka waxa igu jira 3,000 oo lacaga waxaan ka bixiyaa cashuur waxaan ka bixiyaa dulxaarid waxaan ka bixiyaa biyaha waxaan ka bixiyaa bacaha waxaan ku noolay haddana rabbi wuxuu igu dar tii baa la doonay haddana inaan 5,000 oo lacaga bixiyo 5,000 oo lacagi igaba soo gashay halkay ka keenaa askar baa la ii dalbado waaba la ii qaadaya yaa
maxaan ku dhimanayaa waayahay dalkana intaasoo dhammaan soo elgelay yaa waxa weeye haddaba soo doortaha noo keenay 50 kun ee lacagii baagad baa u soo dega dawladda ha la xisaabtanto sideeda uga qaadato agoomaha dhulka yaalana inay u timaado xaq maaha cashuur diid ma niino 500 baa lanaga qaadayay kun baa lanaga dhigo waan qaadnaa maqaaxi ma shidno adduun ma qabano laba marduufaan kolna celinaa kolna laga soo qaadaa haddaba waxa weeye dawladda hoose iyo intii la shaqaysaaba dib ay iskugu fiirsato agoomaha raydka dhulka fadhiyay saraha isku eeg isku soo wada duub oo arrintani ayaan la ogeyn meesha ay ku dhammaan doonto sida la hubana cadaynaysa taagdarrida iyo maamul xumada maayir maydhane waliibaan ibraahim jibriil raya TV magaalada Boorama akaadamiyada adko ayaa waxay soo bandhigeen barnaamij ay ugu magac dareen shaaha cabbo gana akhri faalada warkaasina waxa ay noo hayay wariyahayaga Muxyidiin Cabdilaahi Maxamuud shirkadda isgaarsiinta Telesom ayaa waxay booqatay Boorama Public Library oo ay gacanta ku hayaan akaadamiyada adkow iyadoona u ballan qaaday in ay wax ka qaban doonto waxyaalaha ay u baahan yihiin una samaysay ballanqaadyo geesta kalena gudoomiyaha adkow ayaan la sheer oo ka hadlay munaasabadaasi ayaa waxa uu uga mahadnaqay halkaasi wufuudii ka socotay shirkadda isgaarsiinta ee Telesom وين تلصم أو حقن مر والباء نلدى بتاعن قرب شوف يقارن وحي كربا حال كي مكتبه وباحن هلا صعدة وحي باهي شرنا أنتي كجسوا حاجة أنا نجح حقنا يبو الأدب نقول دوين يا سركال كصعدة تلصم شركة تلصم ولكن مختار وما بعرف قابل سن ماركتينج قبل عوضة يسرى قبل قلبيت كسرنا أدبان ومهد عليا إني حقت إياه dadka kale markaan information ka u bandhigno ayay wuxuu dareenkooda ka qaybsadeen laakiin Telesom waxay kaga duwan tahay shirkadaha kale ee Soomaaliland intay noo imaadaan ayay annakina weydiiyaan maxaad u baahan tihiin maxaa baahi ka jirta geesta kalena isagoo sii watay hadalkiisa ayaa waxa uu baaqu diray ganacsatada kala duwan ee magaalada Boorama iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan waxa fariin u dirayaa shirkadaha kale ee Soomaaliland ama gobolada galbeedka Soomaaliland hawo horeysa daabshiil iyo shirkadaha kale la facaha waa inay ay maaragtay bulshada gobolka Awdal iyo Sanaag qof walba waajibaadkiisa waa inuu positionkiisa ka buuxiyaa innaguna waxaan rajaynaa inaad iimad doontiin oo maaragtay baahiyaha iyo wixii jira aad la garab joogsan doontiin hawsha danta guud dhinaca nagu soo wada jeesano waxaan isku darsanno fikir maskax muruq iyo maal si aan fikir walba ficil ugu bedelno marka gacmahaas haysano Telesom way ku mahadsan tahay dhinaca kale iyaguna waxa ka hadlay mas'uuliyiintii ka socotay shirkadda isgaarsiinta ee Telesom iyagoo halkaasi ka hadlayna waxay yiraahdeen mar labaad waxaan hadlay Boorama Public Library halka wax ka sheegaya runtii Telesom kaliya ma aha hormuudka isgaarsiinta laakiin waa hormuudka wax kasta oo bulshada loo qabanayo gaar ahaan dhinaca Telesom ma markii koowaad ay hayso library-ga mar hore jiray tana waxa cadeynaysaa in xaggii hore wax ka sii wado oo sii xoojiso iskaashiga ay la lahayd library-ga runtiina wax naga go'an mar walba inaan isgarab taagno library-ga iyo dhammaan ciddii ka shaqeynaysa wadannada library-ga runtii waxaan aad ugu rajo weynahay inaan la sii shaqayn doono waxaana naga go'an mar walba inaan isbarbar taagi doono tanna waxay ka mid tahay kii hore laga daba tego waxaa iyaduna xusid mudan horey in Telesom ay waxa weeyaan isku garab istaagtay waxtan ay ka marxaati kacaysaa inay sii joogto in soo wixii meesha ala koray isku garab istaagtay Muxyidiin Cabdilaahi Maxamuud Muxyidiin Xinka telefishinka madaxa bannaan ee Raya TV magaalada Boorama culimada waaweyn ee magaalada Boorama uu helinayay Sheekh Maxamed Shiine ayaa waxa uu baaq u diray bulshada muslimiinta meel kasta ay joogaan inay gacan ka geystaan
dhammaystirka masjidka مسجد جامع جامع مغفرة ومسجد باهن إن لدمايستيرو إسلا مركاسينا لغا قيب قاتو وحانا وادا مريا دبقي كواد أو دمايستير ماي إسلا مركاسينا للربو إن لدمايستيرو من ناردا هدادير أي تبادان أستانتا ومساجد دا وحانا ما تباق ودجيدا كديري كان ستو قدي دا حافظاسي علماء الدين كمقالة بورما أو ما تويرين يا شيخ محمد سينا أو كميدا علماء دواوين الصومالية دا كنون dalka dibadiisa waxaan halkaasi ugu horeyn ka hadlay gudida xaafadaasi iyo ganacsatada maanta ka hadlaysay masaajidka waxaana hadaladooda ka mid ahaa waxaan si ahay gudida masaajidka maantana waxaan ka hadlaynaa waxa weeye minaaradihii masaajidka mid waa taas waxay noo maraysaa 8 mitir tii kalena waa noo baaqi waxa weeye masaajidku dama dhamaanayo qaybtiisii kalaba way hadhay waxaan seen idinka codsanaynaa ama aan muxsiniinta la weydiisanaynaa inaad si degdega noogala qayb gashaan oo aad noogu soo dirtaan wixii walba noo soo dirayseen walaalayaal maalka aan isweydiisanayno waa maal ilaahayna siiyey subxaanahu wa tacaala ilaahay baana ina siiyey ilaahay baana dartii kula baxaynaa oo ilaahay wuxuu leeyahay man dha alladii yuqridu allaha qardan xasana كان إلهي سبحانه وتعالى أماذا قالقا نو باققا يعني مارتي نو سعنيس إلى قيام الساعة إنان يعني مارتي إلهي أقدقنو دي أن كهد لقيمها أي من ناردي مدي بكو كعيسو مدي بوحي كو كعيسا تضوية $7 إيمي كقياستي لعق $4 $5 أنقليني لبية $7 ويقودي من تهي من ناردا تي كلنا $7 وسيدي دي أقودي من مركا واحد inaga rajaynaynaa ilaahay agtiisa waxaan qiimo caynkaas kuma leh dhaqaal lacag badanna ma aha cidda ilaahay u fudeydiyay inay sida ugu dhaqsaha badan leh nogala qayb qaataan masaajidku ma laha maxaan ku dhaxway reer gaari ma laha waa bayd ilaahay waana masaajid lillahi fala tad'u ma'a allahi ahadan cid kasta oo wax kula baxaysa oo khayr kula baxaysa waa u banaan tahay xaafadan deganahay anigu guriyo fara badan oo qurux badan baa ka dhisan dadka ku jira guryahaasi waa wada muslimiin weeyaan kana waa gurigii ilaahay kuwa quruxda badan la dhaqsaa loo dhisaa markaaba way dhamaadaan oo dadku ay dhisanayaan warkan ilaahay aynu isugu tagno waa beedkeenii ifiya aakhiraba maxaan ku idhahdaa quruxdiisa iyo qaabkiisa iyo maxaan ku idhahdaa waa laynagu leeyahay waxyaalaha ugu waaweyn waxaan xasuustaa gabadh baa mar kastaba lacag bay igu soo hagaajin jirtay waxay oran jirtay maanta mashaakil baa haystay qof dhibaataysan raadiyo lacagta uge dibeetana ilaahay xaajadeeda ayuu dhamaystiri jiray marka waxaan qabaa maaragta qof kasta oo masaajidka ilaahay wax ku caawiya inuu ilaahay faraj ku siinayo gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay sheekh xasan khayre dirir iyo sheekh maxamed siine waxaana ay yidhaahdeen waxaa la taagan yahay imika aan maanta isku imanay masaajidka qurxintiisii weeye in masaajidka uu wanaado xaafadaha iyo guryaha oo la arka masaajidkii meesha ka dhisan oo dadku ay eegtaan naaraduna waxay ka mid yihiin calaamaadka masaajiddu ay leeyihiin bay ka mid yihiin waxay soo galayaan masjidka dhismihiisii bay soo galayaan iyo tacmiirkiisii iyo qurxintiisii ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala inamaa yacmuru masaajid allahi man aamana billahi walyawmi alaakhir waaqaama asalaa waaata zakaa walam yakhsha ila allah facasaa ulaa'ika an yakunuu min almuhtadiin camiridii masjidka ayay ka mid tahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وحن سلام يا دبينها الصوماليات ملك السواد الدنيا كتشوكتان عن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد عبد الحسن محمد شينة حني كلا هذا يا مقالة بورما قبل كان أوضل وحن رجعنا مانتا جامع المغفرة مسجد كلا هذا oo jawaamicda ku taala xafadan Sheekh Ali Jawhar oo in badan aad ka daawateen telefishinnadan caalamiga ah aan idin ka soo bandhignay inaad tabarucaadkiin iyo sadaqaadkiina ku bixisaan jazaakumullahu khayran dadka muslimiinta ee Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ama gudaha ama dibadda ayaa masaajidkan dhisay ka qayb qaatay hanti badan baa ku baxday ilaahay waxaan weydiisanayaa subxaanahu wa ta'ala an yaj'alaha fi miizaan hasanaatikum yawm al-qiyaamah ilaahay inuu xasanaadkiina ku daro maalinta qiyaame wa khaasatan dadkii dhulka bixiyay iyo gabadhii Caasha Aadam ee bilowga lahayd ilaa maantana daba socota ilaahay ha ka abaalmariyay intii kale ee markaa ka qayb qaadatay ilaahay dartii masaajidka uga qayb qaadatay maanta masaajidku wuxuu marayaa xaaladiisii gabagabada ahayd insha Allah taala
ma odhan kara gabagabo laana masaajidku wuxuu usii baahan doonaa in dusha la dhiso oo dabaq labaad la saaro waxyaabo badan buu usii baahan doonaa leanna xaafadda uu ku yaalla xaafad aad u dad badan weeyaan aadna loogu baahan yahay waxa walaalkeen sheekh cabdikariin noo sheegay masaajid inta labada minaaradood hadda ku baxaysa inay 34 tahay insha allahu tacaala wax badan maaha ilaahay wuxuu leeyahay fastabiqul khayraadka u degdegu le rabbi subxaanahu wa tacaala marka khayraadkaan u degdegayna bay ka mid tahay alla wuxuu leeyahay wafcalul khayra lacallakum tuflixuun khayrka mar walba sameeya macnaa waad ku liibaanaysaane marka liibaantiiba halkan taalla ilaahay subxaanahu wa tacaala dartii u soo kaalmeeya masaajidkaas u soo tartama wax ku soo bixiya waa wixii aakhira aad u horumarsanayseen macnaa maalkaaga xaqiiqigii waa maalka aad hormariso ee aad aakhiro geysato marka masjidka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu idin dhawaaqayaa guda iyo dabadba walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa inaad masjidka wax ku bixisaan oo aad ilaahay dartii ugu soo bixisaan insha allahu tacaala aanan maqallo war degdega oo arrintaa ku saabsan maxamed cabdilaahi dabshid kalsan t v magaalada boorama daawadayaal kuwaasi waxaa ahayn qodobada niiga haynay dalka gudihiisa iminkii aatana ku soo dhawaada qodobada kale ee niiga hayno daafaha caalamka isbaahaysiga talada haya iyo qaar ka mid ah asxaabta mucaaridka ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo ayaa ku heshiiyay in doorashooyinka dalkaasi dib loo dhigo ilaa bisha Abriil 2018 doorashooyinka ayaa lagu waday in ay dhacaan bisha soo socota xisbiga ugu weyn mucaaridka dalkaasi ayaan ka qayb qaadan wadaxaajooda laga galay dib u dhiga doorashooyinkaasi xisbigaasi ayaa ku baaqay in taageerayaasha ay dibadbaxyo sameeyaan Arbacada bari ah tobanaan qof ayaa ku dhintay rabshado ka dhashay dib u dhac ku yimid doorashooyinka dalkaasi waxaana mucaaridku ay ku doodayaan in madaxweyne Joseph Kabila uu doonayo in uu xilka sii hayo midowga Yurub ayaa ku hanjabay in uu cunaqabatayn saari doono Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo haddii ay dib u dhacaan doorashooyinka dalkaasi wanastaax maxamed qalinle Raya TV magaalada Boorama qaxootiga gaaray magaalada Kismaayo ayaa loo fidiyay gargaar aan soo dhaweynayn balse maamulka Jubbaland ayaa sheegay inaysan awood u ahayn kaalmo gargaar dhammaan Soomaalida dib u noqonaysa xiriyaha qaxootiga ee ku yaala Kenya Soomaalida dib u noqonaysa wadankooda ayaa intooda badan ku faraxsanaa in dalkooda hooyo dib ugu noqdaan balse Soomaalida dib wadankooda ugu noqotay ayay qaarkood wataan caruur qaangaar ah oo ku dhashay dalka Kenya kuwaas oo aan weligood arag wadanka ay ka soo jeedaan waalidkooda ugu carareen dagaaladii ka jiray qoysaskan Soomaalida ay dhibaatada ugu weyn ka haysataa sidii ay ku heli lahaayeen goob ay degan yihiin ama hoy iyaga oo u gaar ah waa Axmed Maxamed Maxamuud telefishinka madaxa bannaan ee Raya TV رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن عمر عبد الرشيد علي الشرماكي ayaa soo dhaweeyay doorashadii ka dhacday magaalada Jowhar isla markaana wuxuu u hambaliyay madaxweynaha cusub ee dawlad goboleedka Hirshabelle Mudane Cali Cabdullaahi Cusable iyo madaxweyne ku xigeenka Mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe isagoo u hambaliyay wuxuu hadalkiisu u dhacay sida tan waxaan u hambaliyaynayaa madaxweynaha cusub ee dawlad goboleedka Hirshabelle Mudane Cali Cabdullaahi Cusable iyo ku xigeenkiisa waxaan Allah uga baryayaa inuu hawsha adag ee la doortay ku garab galo waxaan aad ugu faraxsanahay sida ay doorashadu u dhacday oo ah mid xaq iyo si xalaal ah ku dhacday bulshaduna ay la shaqeeyeen hogaanka cusub sidan waxay yiri ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake istaxada u siciid telefishinka madaxa bannaan ee Rayo xafiiskan ay wasaaraddu ka furtay magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar ayaa xafiis ah ku shaqeyn doonta wasaaradda iyadoo si rasmi ah u halgali doonta isuduwaha wasaaradda Gaani Muuse Geele xafiis ah oo qalabaysan aan ku lahayn gobolka munaasabada xariga looga jaray xafiiska ayaa waxaa ka qayb galay maamulka gobolka degmada agaasimaha guud ee wasaaradda amniga iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda gobolka Karkaar Gaani Muuse Geele wuxuuna sheegay inay farxad u tahay in si rasmi ah looga furi doono xafiiska wasaaradda kaas oo aan horey u jirin wuxuu kale uu sheegay xafiiskan inuu ka shaqeyn doono sidii loo adkeyn lahaa ammaanka gobolka gudoomiyaha gobolka Karkaar Cabdulqaadir Siciid Carshe iyo agaasimaha guud ee wasaaradda amniga Yaasiin Yuusuf xildhibaan Xasan Ciise Canjeelo oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ayaa sidoo kale xafladda daafurka xafiiska wasaaradda kula hadlay in sheegayna in ay soo dhaweynayaan furitaanka gudoomiyaha ay si gaar ah u xusay wasaaradda aan xafiis lahayn gobolka si ay inayna si degdeg ah ku furato xafiisyadooda
howlaha iyo waajibaadka ka saaran bulshada shirkadda isgaarsiinta Somtel oo sidoo kale lagu casuumay munaasabaddan lagu daahfuray xafiiska ay ku ballan qaadayo in ay ka qayb qaadan doonto horumarinta howlaha shaqo ee xafiiska uguna deeqi doonto internet xawaarihiisu sareeyo xafiiska ayaa la filayaa inuu si weyn ugu qayb qaadan doono howlaha amniga ka socda gobolka wuxuuna ku soo adkeynaya xilli guud ahaan Puntland ay ka socoto diyaar garowga howlaha doorashooyinka wuxuuna ka qayb qaadan doona sidii ay u qabsoomi lahaayeen doorashooyinka وأحمد محمود تلفزيون مدح بنان ريا تيف daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan qodobkaasi u dambeeyay war wixii dalka iyo dadweynaha ban laga soo gaaray warka waxa habeenkan caawa ay soo jeedinaysa anigoo Kawsar Jaamac Barkhadla intaynu warkani warka xiga dib u kulmayno waxaan iga taginaa salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh الباب وفركي وسيله ويرمانتي عالميته وقاسك لالقلا أكتوبر أنا لها عليو قبيل فيك قريتي هديو دليو تحت عاسيتي بقينا أنفاع الباب وفركي وشريته ويرمانتي عالميته وقاسك لالقلا أكتوبر أنا لها ومدية ضيدوني يا أبي ومدية وبحس ولدوغي راعية من نمو وآلي جد
adigala October adalaha Wadiya tuqiyo doniya abe Umaniya wala isura tuge Naaciya midnimo daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenii milicsiga maalmihii ku soo maray oo aan ku soo qaadan doono taariikhdii dowladdii kacaanka ahayd ee maxamed siyaad barre la soco xuska maalinta kacaanka 21kii bishii Oktoobar ee 1969kii hordhaca barnaamijka taariikhda kacaanka ee siyaad barre oo xuskeegu uu ku beegan yahay maalmaha soo socda 15kii bishii Oktoobar 1969kii ayaa la dilay madaxweynihii Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmaake isagoo socdaal ku maraya magaalada Laascaanood allaha u naxariistay waxa madaxweynahaasi la aasay 20kii bishii Oktoobar 1969kii isla habeennimadii xigtay inta uu waagu u bariin ayay ciidamadii la wareegeen taladii dalka Soomaaliya 1974kii oo ahaa sanadkii afraad ee taliska ciidanka Soomaaliya waxa la weydiiyay Maxamed Siyaad Barre waxyaabihii uu wadanka u qabtay waxa uu ku jawaabay sida tan hadalkuma koobi karaan isleeyahay waxyaalaha waaweyn oo gacanka u qabtay balse waxaan ummadan mid ka taabto aan isleeyahay waxa ugu weyn waxay noqon karaan in dadka Soomaalida ah oo awalto hurday inuu hurdada ka toosay dadka Soomaalida oo awalto ogeyn iyaga dad ahaan awoodooda iyo dalkooda khayraadka ku jira iyo iyaga nafto waxa ay isu yihiin inay maanta garteen haddaan midnimadu ka soo tilmaamana matalan waxaan nooloo u garan karaya Soomaalidu in ay xagga saxaafada ama xagga tacliinta aqoonta inay ku xirnaayeen ajnabi oo dowlado kaleeto afkood iyo tacliintooda ay ku xirnaayeen laakiin markii af Soomaaliga la hirgeliyey degmadiisa in ay u noqdeen dad ahaantood Soomaali cusub ayaa dhalatay markaasi dadkuna waxay u hanweynaayeen waxyaabaha ay dadka iyo dalka u qaban karaan guulahaasi waxay dhaliyeen suugaan iyo heeso ay dadka qaarkood ku qaadi jireen guulwada wasiyaad waxaana ka mid ahaa midda tan الباب وفركي وسيله ويرمى انت عالميته وقاسك الغلا October adalaha عليو قبيل كغرتي يو دليليو تحت عاسيتي بقينا أنفع الباب وفركي وسيله
ويرمانك عربيته وقاسك أبيك أكتوبري أدارها وهي تقضي دنيا أبين وهي وبحسورة دوغين راعية من نمو وأبي جدي أبيك أكتوبري أدارها وهي تقضي دنيا أبين وهي وبحسورة دوغين راعية من نمو وأبي جدي أبيك